ciidanka lafta gareen ayaa weerar waxa ay ku qaadeen magaalada Baydhabo iyagoo khasaare dhimasho iyo dhaawac laba ka geystay gudaha magaalada Baydhabo. Siciid Cabdulaahi Deni oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo kulan la qaatay dowladda Mareykanka muxuu kala hadlay muxuuse kulankaasi oo ku saabsanaa barnaamijka ayaa ku maqli doontaan qodobada iyo qodobo kale xiiso leh ayaan idinku haynaa. haddaad ku cusub tahay barahan ku leenahay bulshada channelka subscribe saar muuqaalka like gare oo share gare mahadsanidin. wararka laga helayo magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in xiisad siyaasadeed iyo mid amni ay ka taagan tahay magaalada Baydhabo kadib markii xalay gudaha magaalada Baydhabo uu ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada taabacsan lafta gareen iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. dad goobjoogayaal ayaa sheegaya in labada ciidan lagu arkayay xaafado kala duwan oo ka tirsan magaalada Baydhabo iyo wadooyin muhiim ah oo ay ka mid yihiin wadada xanaanada Alfaras iyo waliba wadada Sodonka halkaasi oo ay ka sameeyeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo si weyn looga hadalhayo gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed. war qoraal oo ka soo baxay taliska booliiska Koonfur Galbeed ee taabacsan lafta gareen ayaa waxa ay war ka soo saareen dagaalkii ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. ciidanka booliiska gaarka ah ee dowladda Koonfur Galbeed ayaa waxa ay sheegeen in howlgallo culus ay ka wadaan gudaha magaalada Baydhabo dhowr xarumood oo fariisimo u ah ciidanka Salbalaar ayaa lagu qaaday howlgal waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo la gaarsiiyay maleeshiyaadka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu yiri warka ay soo saareen ciidanka lafta gareen taabacsan. waxaanu si adag ugu digaynaa cid kasta oo isku dayaysa in ay carqaladayso amniga magaalada. hay'adaha amniga sharciga ah ee Koonfur Galbeed ayaa tallaabo sharci ah ka qaadi doona shakhsi kasta oo lagu helo falal lid ku ah nabadda iyo xasiloonida shacabka. sidaas waxa lagu yiri bayaan ay soo saareen ciidamada taabacsan lafta gareen. sidoo kale shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo ayaa lagu wargeliyay in ay ka fogaadaan goobaha ay howlgalladu ku socdaan isla markaana ay joogaan ciidamada amniga Soomaaliya ee xaqiijinaya nabadgelyada guud ee magaalada Baydhabo. dhaqdhaqaaqyadan cusub ayaa ku soo aadaya xilli gobolka ay ka jiraan muran siyaasadeed iyo loolan xoogan oo ku saabsan hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed iyadoo dhinacyadu ay isku hayaan siyaasado abaabulan iyo waliba dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ku soo wajahan magaalada caasimadda ah ee Soomaaliya oo ka aloosan tahay khilaaf la xiriira dhinaca arrimaha doorashooyinka. Siciid Cabdulaahi Deni ayaa ka qaybgeli doona shir ay garwadeen ka yihiin wakiilada beesha caalamka una dhexeeya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hogaamiyayaasha mucaaradka oo ugu horeeyo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed. waxaana la sheegayaa in dhinaca mucaaradka ay ku matali doonaan Siciid Cabdulaahi Deni iyo waliba Sheekh Shariif halka dhinaca kale ee fila Soomaaliyana ay ku matali doonaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya. shirkan oo loo ballansan yahay ayaa ka qabsoomi doona xaydaabka Xalane iyadoo looga arisan doono arrimaha doorashooyinka iyo sidii dhinacyadu ay heshiis uga gaari lahaayeen ka hor 15 May oo ku eg yahay muddaxileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. xubnaha beesha caalamka ayaa dhageysan doona aragtida dhinacyadu ay isku hayaan iyo meesha ay kala joogaan iyo waliba ajandayaasha siyaasadeed ee ay wataan. xubnaha beesha caalamka ayaa dhageysan doona aragtida dhinaca siyaasadda ee la isku hayo iyadoo meel dhexe la doonayo in la isugu keeno. khasabna ay tahay in laga wada hadlo oo laga heshiiyo xaaladaha taagan ee hadda dalku uu wajahayo ugu horeeyaan arrimaha doorashooyinka. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu diblomaasiyiinta Mareykanka ee ku sugan magaalada Muqdisho uu la yeeshay kulan. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu la kulmay hay'adaha safiirka Mareykanka ee Soomaaliya iyagoo oo ka wada hadlay kulanna ku yeeshay safaaradda Mareykanka ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda dalku uu hadda marayo iyo sida aan marnaba suuragal u ahayn haddii 15 May la dhaafo in ay sii socoto doorashada halka dhinac ah ee uu wato Xasan Sheekh Maxamuud. Farmaajo iyo dowladda Mareykanka ayaa sheegay in musharaxiinta iyo waliba daneeyayaasha dhinaca siyaasadda Soomaaliya aysan marnaba aqbali doonin doorasho dhinac ah wixii ka dambeeyay 15 May oo aan heshiis siyaasadeed haysan. Farmaajo ayaa beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka uga mahad celiyay taageerada Soomaaliya iyo dadaalada ay wadaan. waxaana xusid mudan in madaxweyne Farmaajo uu haystay heshiis siyaasadeed 4 bilood ka hor dhammaadka muddaxileedkiisii heshiiskii 17 Sebtembar.
xilligan oo kale dhowr sano ka hor maxamed cabdulaahi farmaajo oo ahaa madaxweynihii ka horreeyay xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu haystay heshiis siyaasadeed oo 4 bilood ah dhammaadka muddaxileedkiisa ka hor. Heshiiskaasi oo ahaa 17 Sebteembar, halka xasan sheekh maxamuud oo u hartay 4 cisho uusan haysan wax heshiis siyaasadeed ah oo ilaa iyo hadda la isku raacsan yahay. Waxayna dad badan sheegayaan in xasan sheekh maxamuud tribkan uu doonayo inuu ku dagaalamo kursiga oo marnaba uusan ogolaanin in siyaasiyiinta kale ee la tartamaysa uu siiyo wax fursad ah. Daawadayaal, intaas ayaa kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkan kooban oo aan ku eegeynay qodobadii ugu dambeeyay ee wararka Soomaaliya. Haddii aad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada, channelka kusoo biir, subscribe noo saar, muuqaalka like gare oo share gare si uu dad badan u gaaro. Mahadsanidin.